waa koox haween waxayna iskugu jiraan kuwa dhaafay xilligii waxbarashada iyo kuwa aan wali gaarinin balse gabdho isxilqaamay iyaguna waxbarashada ku jira ayaa u faa'iideynaya xilliyada aysan waxbarashadu jirinin ee nasiinada lagu jiro iyadoona iskuulkan oo aflax lagu magacaabo uu furan yahay 7 duhurnimo ilaa iyo 9 barka galabnimo marka laga reebo maalmaha khamiista iyo jimcada. safiya sheekh cabdi muuse waa maamulaha iskuulkan aflax waxa ay sheegaysaa inay diyaar u yihiin waxbarashada hablahan oo qaarkood ay sheegtay inay ka xishoonayaan iskuulada ay dhigaan raggu. waxaan ahay maamulaha aflax iskuulkan waxaan ku barnaa dad oo waxbarashada aan gaarin oo hadda oo yar ah oo haysan fiisiga ay iska bixinayaan lacagaha iskuulka lagu dhigto iyo dad waaweyn ku barnaa xilliga ay ka faa'iideysanayaan waxbarashada ay dhaafeen dabcan iskuulaha kale way ka xishoonayaan in aadan ayagu waaweyn anagana iskuulkan waa iskuul oo primary in maadooyinka kale oo iskuulka laga qaato ayaan ugu dhignaa dabcan hooyooyin ay u badan yihiin inkastoo kuwa yaryarna ay ku jiraan hadda maadaama ay gabdhahan isku xilqaameen inay u faa'iideeyaan walaalahooda ayay safiya sheekh cabdi muuse waxa ay sheegaysaa inay kirada guriga iyo buugaagta ay ka caawiyaan maamulka iskuulka iyagu ay dhigtaan isla markaasna si lacag la'aana ay wax ku baran ardadan. dabcan qarashka guryaha aan ku deganaa ilaa buugaagta iyo qalimiinta intaas oo dhan waxaa naga saaciida macallimiinteena iyo maamulkeena iskuulka Cumar Faaruq si lacag la'aan ku barnaa bilaash. iskuulkan waxa uu qaas yahay gabdhaha maadaama ay gabdho dhigaan isla markaasna gabdho on kaliya ay wax ka bartaan sida ay qabto Faadumo Nuur Cabdi oo ah agaasimaha iskuulkan. si qaas ah waxa aflax u leh gabdhaha Soomaaliyeed dhammaan ayaan u maleynayaa magacaas inuu ka turjumayo waayo waxa wax barta gabar macallimad ah waxa maamulo ah gabar waxa agaasimo ah gabar meesha gabar waxa fadhiyana waa gabdho taas oo run ahaantii muujinaysa caadifada gabdhaha Soomaaliyeed ee ay rabaan inay heer walba gaaraan loogana hormarin karin meel kasta ee ay kuba ay tagi karaan meel walba oo qof kasto bilaadan uu tagi karo. sanad walba isbedel ayaa lagu sameeyaa macallimiinta iyo maamulka iskuulkan balse saameyn intee leeg ayay ku yeelataa ardada wax ka barata waa tan mar kale Faadumo Cabdi Nuur agaasimaha iskuulkan oo ka jawaab celinaysa. run ahaantii waa dareemi kasta qof kasta oo ku jira xaaladda waxbarashada wuxuu dareemaa caqabado badan ee noloshiisa mar walba la soo kulma marka aan weydiinay ardadii hore ee qaar kamid ah ee nagu soo noqdeen caqabada ay kala kulmi karaan macallimiinta cusub run ahaantii waan fahanay wax walba waayo adigaba marka aad wax baranayso markuu macallin cusub ku yimaado waxa dareemi kartaa dhibaatada uu la iman kara macallinkaas iyo waliba isbedelka wanaag ee uu la iman kara macallinkaas si kastay tahaba waxaan u sheegnaa ardayda mar walba aan ku qancinaa xaaladda isbedelku inay sidaan tahay waayo ardayga form 3 ah markii loo dhiibo iskuulka aflax wuxuu noqdaa macallin iyo agaasimiye waliba maamul haddana sanadka markuu dhamaado ardaygii wuxuu u wareegayaa form 4 waayo asagu wuxuu ku jira xaalad waxbarasho. waxbarashadu waa shay muhiim ah qofka bini'aadamka way anfacdaa balse qofku markuu wax barto waxa la ogaan karaa inay waxbarashadaasi u noqonayso indho ama wado uu ku socon karo. saadaq la warbaahinta SBC magaalada Cadaado.